wasiirada xildhibaanada marti sharafka kala gidsan halkan soo xaadiray qof kasta mansabkiisa ayaan ku salaamayaa sharaf ay tahay inaan ka soo qayb galo madal ceenkan ah oo lagu gorfeynayo xaajada ama xaajooyinka iyo horumarada dumarka Soomaaliyeed hablaheena ay gaarayaan iyo sida isku kaashan lahaayeen xildhibaan farxiin waxay marmal ku dhowr jeer ku celcelisay hal soo koobo maanta oo kale waxay ahayd meeshii aan ku nafisi lahayn madaxana furan mind iyo dhamaan inta soo qaban qaabisana waa mahad celina waxaan soo jeedin lahaa in laga dhigo forum ama maalmo doodo socdo in loo bedelo halka saacado kooban laga dhigi lahaa oo maanta dhan 2 daqiiqo la isku qaban lahaa aniga dabcan 2 daqiiqo iyo 2 saac xataa kuma soo koobi karo CV-gayga marka loo fiirsho shaqada aan bulshada u soo qabtay marka loo fiirsho da'deeda dad badan ay isdhihi doono gabadhan waxay dhalatay 2020 ka meel 2000 dhalatay da'deeda ma sheegay sanadka dhashay laakiin dabcan waa qiyaasi kartaan waxa ka mug weyn shaqada bulshada aan u qabtay dabcan dad badan oo marqaati ka ah iyo dad badan aan wada shaqeyno ayaa halkan jooga ugu horeeya wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka oo halkan garabkayga maanta fadhiya aad uga faraxsanahay inuu marqaatida nool u ka yahay markaan u soo noqdo magacayga waa Fartuun Shariif Maxamed waxaan agaasimo ka ahay 3 sano la soo dhaafay isbitaalka hooyada dhalaanka ee Banaadir oo aan aniga ku dhashay sharaf ay tahay isbitaalkii aan ku dhasho inaan agaasimo ka noqdo ma ku laabanayo waxbarashadeeda because background-iga waqtiga aan aad u soo koobaya waxaan wajahayaa sidii aan agaasimo ku noqday iyo sidii caqabadihii ka dhashay iyo sida bulshada caqabadihii jiray aan ugu bedelnay codkayga waa la maqnaa oo maleena inaan ugu bedelnay fursado rag badan oo halkan fadhiya iyo kuwa meediyaha naga arka wax qabadkeena ay qireen in dumarka loo badiyo xarumaha sidan oo kala ah sida isbitaalada iyo goobaha waxbarashada dabcan markii aan agaasimo ka noqonayo isbitaalka oo wasiirada caafimaadka wasiir Fawziya ay dekreeto igu soo saartay waxaan ka shaqeynayay isbitaalka Digfair oo aan ka ahaa agaasimo ku xigeenka qaybta caafimaadka oo ah isbitaalka sectionka qaybta ugu shaqada badan human resource aad u badan ay hoos tageen dabcan sidii aan ku tagay markaan aan xooga saaro waxa waaye wasiirada dabcan imaysan aqoon cid aan ka dhashay dabcan waxay aragtay dadaalka iyo xilli walbo habeen iyo maalin inaan u taagnaa culays walba ama shaqo kasta ama kormeer kasta ee wasaaradda caafimaadka ay ku timaado waxaan ahaa qof markaas xaadir u ah warbixinada maamulka bixinaya aan qayb ka ahay kuna faanayo shaqada markaas aan hayno iyo adeega bulshada wasiiradda magacaabisteeda markay soo baxday dabcan waxaa bilaabatay nuxnux badan oo ah meeshaas dabcan qof walba way ka seesaa maamulkii hore oo isoo bedelayay xilligii dawladii dhexe ilaa iyo xilligii markaas waxay ahaayeen rag oo runtii aqoon iyo way aragnimo iyo intaba dad age u badan aqoonta iyo capacity waa iska meesheeda laakiin waxaan agaasimihii ugu horeeyay ee gabar ah ee loo magacaabo waxaan ku faraxsanahay in wasiiradeeda ay ii garatay mas'uuliyadaas inaan ka soo bixi karo maadaama ay hore u aragtay shaqadii aan ka hayay isbitaalka Digfair maamuladii aan ka soo wada shaqeynana ay qirsan yihiin dabcan inaa gabar tahay nagama saareyso nagama reebeyso hankeena waxa la isku dhaafay ee aan aaminsanahay waxay tahay qofnimada gabar iyo wiilna kuma xirno qofka dadaalka iyo waxa uu qabanayo iyo shaqada position-ka uu ka qabanayo runtii caqabado badan ka soo laabteen magacaawistii kadib waxay noqotay 33 maalmood anigoo magacaaban ayaan isbitaalka Digfair joogay dadkii joogay waa joogaan marqaatiyaal ay leedahay ayadoo la dhahayo gabar sidee ugu bedelaysaa yani wal cilmi dhahay laakiin maantaan aarsaday oo resultigii aan bulshada Soomaaliyeed ee marqaati ka noqotay ayadoo la dhahayo gabar ma ay bedelayso ayada ma waxa ay bedelayso 30 jir ayadoo la dhahayo laba midba marka challenge way ahayd kow dhalinyarnimadii inaanan wax loo qoorin laba dumarnimadii inaan wax loo qoorin oo la leeyahay ma sameyn karaan ma yeeli karaan
qof 30 sano meesha ka shaqeynaayo 30 sano inuu 30 jir inuu bedelo macquul maahan dhaqaat aniga 9 sano ugu dambeysay waxa la shaqeynaayo Turki adeegyada caafimaadka ka soo bila isbitaalkii Deefa professorka Yaxya marqaati ka ah isbitaalkii Deefa markii la wareejinayay dadkii igu qanciyo kamid ahaa inaan digfeer la aado oo aan systemkii aan markaas ka shaqeynaayo aan xagga ka hirgeliyo shaqaale badan oo 120 qof oo shaqaale aan hogaaminayaan aan xaggaas ku beernay sidaasaan digfeer ku tagay markii isbitaalkii Deefa uu xirmay oo aan ka ahaa maamulkii Soomaaliyeed adeegyada caafimaadka agaasimo waxaan ka ahaa officer so waxaan aad u soo koobayaa nuxurkayga inay iga baahdo ma rabo dumarnimadii maalintii xilka la ii dhiibay markaan u soo noqdo waxay ahayd 6 February wasiiradda habeenka ka horeeyay asla hadalnay waxay tiri bari waa xil wareejintii waa lagu dhawaaqay xukuumaddii horena waa ugu mahad celinaa sidee u garab istaagtay gabdhaha inay wax qaban karaan ee isbitaalkaasna maamuli karaan runtii wasiiradda naftarkeeda in xukuumaddii hore rasaar khayra ayaa ahaa rasaarihi ku garab istaagay in la fuliyo xukuumadihii ka horeeyana way ku guuldareysteen dabcan inay markaas maamulka gacan soo geliyaan dabcan 5 maalmood ayaa u dhaxaysay 6dii ayaan la wareegay wasiiradda ay soo xigtay bari waa xil wareejintii xaalkaaga ka waran soo way ogeyd inaan xaamil ahaa wasiir diyaaran ahaan ku yaray inaan bari xilka la wareego subaxdii digfeeran aan soo macsalaamay xilligii markaan imaado shaqada aan la wareegay markii aan memberka istaagan rabo markii inaan idinkaga sheekayo markaan istaagay dabcan qofka hadduu xaamil yahay dabcan caadi ma u fadhi ma u istaagi karo soo maaha hooyanimada waan ku faanayay da'deeda afaraad ee ahayd gabadheeda alxamdulillah markii aan istaagay kalsooni aan dareemay because 2 qof ahay inaan gabar uurkeeda sidana waa aaminsanaa oo waa ogaa soo khudbadii markaan bilaabo shaqaale kala duwan dad marti sharaf nooc walba wasiirka waxay inuu joogaa markaas u maleena dad badan aad joogeen almost 300 qof ka soo qayb gashay hoolka uu aad u buuxay kelmadda mikrofoonka markaa bilaabay dabcan waa qalqalsanaa oo waxa meesha aan ka soo tagay iyo meesha aan imid kaaf i kaleeriye ahayd yacni banaadir intii taqaanaa taqiina 3 sano ka hor scratch-an ka soo bilaabnay halgankii maadaama uu jiray gaab badan oo xagga dawladda naftarkeeda ay lahayd oo istaalka inuu dib dhac iyo garab istaag la'aan xagga bulshada ah uu yacni positionkaas uu soo gaaray in burburkaas uu soo gaaray waxaan rabaa marka maalintaas kelmadda khudbadii aan bilaabay dadkana waxay leeyihiin da'dii dhallinyaranimadii iyo dumarnimadii waxay ku darsatay xaamilanimay ku darsantay soo marka cunuga markuu bannaanka imaado waa lagu farxayaa culayskii hooyadaa heeso haddana waxaa leeyahay waa lagu eedeynayaa waxaan dhahay weliba waa xaamilo beriya dhaleysaa markaas maxay qabanaysaa wasiiraddan balaaya qoorta noo gelisay this wax yacni aniga waxaan dhahay hal mid aan ka codsada inay ila shaqeeyaan haddii aan wada shaqeynana saacad inuusan gaab geli doonin positionka aan joogo oo aan kursigayga saacad uusan ahaan doonin cidlo ee taas ku bishaareystaan aan u sheegay anoo dareensiinaya in hadalkoodii aan maqlay dabcan maalintii aan la wareegay 12 bishii waa 6dii aan la wareegay 12 February 5 maalin u dhaxayso foosha ii imaad subaxda gaarigaas oo ii taagan yahay xanuuna ay qabtay maadaama isbitaalka diyaar garow badan uur isbitaalka digfeer dhaqaatiirteeda waxay dhaheen waa soo labistay xanuuna ay qabto waa ku leex markaan dhalay wasiiradda ay soo wacday saaka maxaa kugu dhacay wasiir waxaan xanuuna ay qabto waa dhalay waa soo labisana waa imaanaya wasiiradda wallaahi maanta wasiir Fawzi way joogtaa way aamini weyse Naciima Cabdiqaadir ay igu soo celisay waa dhalay iyo waa imaana war adi muwaalanta ma waaliyaan ku iri shaqaale ii soo dirsada shaqaale ii magacaabay fadhimi ii yaalo maalinta arbaci ahayd arbaco khamiis jimco oo labada maalmood ugu adkeed ahayd maalintii sabtiga wallaahi waa soo shaqo galay yacni markaas ma aheenin ilmahayga inay waa ii baahnaayeen waa la ii keenaayay waa nuujinaayay waajibka sida ay tahay laakiin haddana ma dhicin wax faaruq ah oo ah agaasimihii wiilka ahaa iyo agaasimihii gabadh ahaa waxa noo dhaxeeya farqigana waxaa waay qofnimada ma ahan gabarnimo ma ahan wiilnimo soo alxamdulillah 5 caruur ilaahay i siiyey 40 biri wax la yiraaho maanan qaadan institutionada kala duwan aan ka soo shaqeeyay anigoo mar walba diidan in gabadha ay xilli kasta la heli karo
أنت استقانة وإتقانة أصحاب بهذا عافمات كأد أصحاب سيفي وهاي صوّد الشقينة مركي والله حنونك وعش مركي الله سماه أور لهذا اللي ده مركي عن علوش إصابة حذا حجاب كان حرناي قلاب كوت كان حرناي نحن كو أدسناي أدي جاب أور له يعني مرة قبلها وحارة إن كل يرجله وحياه بدل ما دام أمامك أنت بدل كسر شقينا لا من إن رأينا كل يرجله أوكي نيسا وحياه هذا اللي قد دودا أو إن شقدي هلي ويسو أما مرة البابا دب لورد يقول له شن قبل ده ماشان جوكت يو كان سي في ويلش على صهر مريو قيب وين أنا كلنا مرقاتنا وأصلا نقدر وحاوي قبل ده والجورسنا بالكذب حلاده وحأم لنا إن أورله أسبوعا مي ما كرا هالسوق المركة إنا ميل سرتكتو هدي أجورسته هدي أسبوع كحكتو نيستي علوش هذا واحد كان نوع سنة عنقان إلاليو عنق فرط مكودد مال إلهي لو قلت لقله أو من أو يعني حرن أو أستريها إلهي هدو إدمن أصلا ما يستن بناكو إيمانا هو يوم بدنا بحاجة هاوس وايف أو جورج جوا هدنا المه كسر دلمان أيون واحد دقائق سمينين because عذرها سوا ودسيسة سوا إلا يجوك تلقل أما وحياله علاس يفهم كرت عفمات كذا إنه داوعه إنه أبررت إنه قاعده وكفر حسنا هاي فملكية هو يدا إصاب وطهاي إن حاجة صابوا وياهي قرب استاجوا ذن كسو جار ماشي أنا ما أنت أهل كان جوا وأمها تعلينا هذا الكيجا إنا قيرودا لقي أبا وذكر على جرينا إن قبلها مركة حاملة نقدان حامل ونقنيسا ودلسا أنا أنت أنشقينا سي في جيجا سجال كسنة أو أن هوي حيوان سجال كسنة أو أن ريح لي حيوان معنا حدنا سجال كسنة سجال بلود كميت أنت أن مقنادي أما أن مقنادي ويك إنديس كجمعة لقيا ومرمر إن جوجو أنت بدنا وحوا جوري كان مسؤولية ديس أنا أسوء أديجو المها أنا سكول كحنانة دجيستو شقادنا وأقدم بيا مامل كمركز ماشي جوجو قف وقدم بحفيز كبحنا أنا جواي مركا waxaa idinku dheerigelinaa dhaqaatiirta bahda caafimaadka oo aad ula shaqeeyo ina iska dhaaftiin calool jilaac wax la dhaho mas'uuliyada bilaadid iyo shaqada ma imaan karo iyo aad 3 saacadood adoo laafiyoona imaadid waxay dib u dhigaysaa gabdhaha in shaqada loola soo cararo waxay noqonaysaa in la dhaho waxaan u baahanahay positiono oo rag ah annaga naftarkeena qaybaha ku leenahay waa dhiirigelinayna marka gabdhow is adkeeya waxaan u baahanahay inaan ragga inta diinta noo baneyso aan uga fiicannahay aamisana waxana saamaxayna waxa waaye daacadnimo iyo gabdhaha inay yihiin kuwa sida ugu fiican shaqada diin loo dhiibay sida ugu fiican inaan u organize gareena jecelnahay waxaan jecelnahay guusha waxaan necibnahay guul darrada waxaan leenahay ka go'naasho shaqada markaas loo dhiibay intaasaan saamaxayso inaan guuleysano waxaan u baahanaa marka hal qodob aan rabaa inaan contribute gareeno anagoo mideysan gabdhaha waa inaan isku camirnaa waa inaan isku camirnaa inaan dhihi karo gudoomiye maxaa lahayd xabsi Zainab waa ku faanaa runtii waxaan gabdhaha hal doorka waaye hadaa facebookida isku aragno like-ta u badinaa iyo share-ka soo gabdhaheena ay leedahay markay hadlayso أنا وحن دري ما يا وإمتليسا قبلها هنا ده جولست أنا وجولست قبلها قدومياش أسكو حرنا هيك متها ولا شيء من أحلى سيدا وكلا لأن يرى دقائق أو قبله كجرتا مركان فيسبوك أبص صار دقو شير اللي ده هاي هول كرات هاي أنت هسا إجابة أنا جا سو مرك إنا ويلش إن أو حلقة بسنا مركان ربنا هرت إنا أسكو عمرنا واي أنا وح أسكو أقلان هذا فرتو وح نقطة إنا أمسنا ولا شيء فاضم إنا وح نقطة حقوق أيضا كم قال أنا أصاد عناية أنا أقاسم كحجان وحقيقة جبر recommendation كأوجبنا وزيرة أن هاي ويل هاي كينين عن ده because وحان ربع عنصر ميه البروفيسور وحان من سنة إن قبلها يهين وحان درنسينا مركل إيه كان أقاسم كحجان وحال هاي مرتين ما لقيه أو جبر يويل لقى دقة جالن جي أوجبنا عكسية نقطة مالنا إسكما أنا هر إيمانن وإسقرب سنة هراء وضناي إسبتالك 75% قبلها واي ويلش إسبتالك minority كيهين وين كوكان عسيهين because أجاسمها كده جاي ساس مرك هذا كم كده يرانا يو واحد بدنا يجيب وحق وجعل لها منست إن نوبلاريس فورم ك وقت جنا نوبلاريس وأم هتقولنا دقيستياش شرفت له ووذ قولي سكرنا هدي أنا قلنا قوم مدة أو إسقو عمرة وما سنتين